بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد دمان خيارتا دعوانيسا أم بإلى السعودة برنامج كان ونهرطوين السلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته waxaynu ku soo jiray barnaamijkeennii ku saabsanaa islaamku inuu yahay akhlaaqda wanaagsan ayaynu ku soo jiray aynu ka dhigaynay xalaqo aynu ka dhigaynay insha Allah taala maanta kilibkan waxaynu ku duubaynaa xalqadii saddexaad oo al-khuluq al-hasan amba dabeecadda wanaagsan amba akhlaaqda wanaagsan aan kaga hadlaynay موضوع عوانك قلبت أما كلب كان ما أنت عن كدوب إنه حنقون دونا إن شاء الله تعالى فضل حسن الخلق يعني أخلاق ذا ونأكسن فضل عائلة ذا هي هنتي وعلى مسو كوبي كرا أخلاق ذا ونأكسن فضل عائلة ذا هي محيا الإسلام كوردن بابا وحان عن عناي وخلق سيدو كلا وحوي أعظم صفة اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم وحسن الخلق ويان عناي مركز سادرتاد lama soo koobi karo oo waa diinta oo dhan baan nahnay laakiin waxaan dul istaagi doonaa qodobo yar ayaan ka dul istaagi doonaa fadliga ay leedahay xusnul khuluq hadii ilaahay yiraahdo horta ugu horeyn inagu ilaahay subhanahu wa ta'ala asaga in abuurtay marka ilaahay jaceelkiisuna waa waxyaabaha iyo ridihiisu waa waxyaabaha ugu muhiimsan waxyaabaha marka laga faa'iidayo amba waxyaabaha fadliga ay leedahay waxa weeye ugu horeeya ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa ku jeclaanaya محايل إلهي يحب المحسنين إلهي دتك محسنين تأو جعليه هي دتك صابرين تأو جعليه هي دتك أخلاق وناقص إلهي وجعليه هي النبي عليه الصلاة والسلام مركي لو يديه أو اللي يرمحوها هاي أحب العباد إلى الله الدوم هذا إلهي كواب وجعليه هي وحول النبي عليه الصلاة والسلام أحسنهم خلقا أو كما قال عليه الصلاة والسلام يعني وحاول يدك كوا أخلاق وناقصا بو إلهي وجعل يهي مركا آد بين ugu baahana إلهي سبحانه وتعالى inuu ina jeclaado sidoo kale to akhlaaqda wanaagsan fadligeeda waxa kamida amba waxyaabaha laga gaarayo nabiga kaleey salaatu wasalaam ayaaba ku jeclaanaya oo nabigeena sidoo kale kaleey salaatu wasalaam markuu ka hadlayay wuxuu yiri maalinta qiyaamada markii la isu yimaado oo qiyaamaha la gaaro markaas wuxuu yiri inna min aqrabikum kuwina igu soo dhow majlisan wa ahabbukum ilayya يعني كوا يجوسوا دو عن مارته اللي يجو كالجعل بدنيه هي وحوي أحسنكم خلقا يعني كوين هو أخلاق ذا وناكسن كوا سامان تقيام عن وجه على النبي عليه الصلاة والسلام مركب ياشا واحد كف هنتي إن إله سبحانه وتعالى قف أخلاق ذا وناكسن وجعليه هي رسول كان صدق كلاته عليه الصلاة والسلام وجعليه sidoo kale to waxyaabaha aad iyo aadka u balaaran qiimaha badan ee akhlaaqda wanaagsan laga helayo waxa ka mid ah jannada in lagu galo waxa aynu maartay qof kasta hamigiisa iyo yaani waxa uu niyada ku haya aakhira waxa way inuu janno galo marka acmaasha ugu badan ee jannada lagu galahayo waxa way waa xusnul khuluq way macnaha oo taas waxa way nabigeena kaleey salaatu wasalaam bay ka soo arootay oo la yiri maxay tahay yaani amalka loo yaani lagu galayo jannada markaas nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri taqwallahi wa xusnul khuluq labadaas ugu badan marka meesha waxaad ka fahantay in xusnul khuluq uu yahay waxyaabaha ugu badan ee jannada lagu galo inuu kamid yahay marka aad iyo aad baynu ugu baahanahay inaynu jannada aynu galno waliba waxa ka sii daran jannada ma aha jannadu waad ogtiina waa darajaad waliba darajooyinka sarsare ee jannada ayaa lagu helaa oo nabiga kaleey salaatu wasalaam waa ku lahaa ana za'iimun ana waxaan u yaani waxaan kafiil waxaan u kafaala qaadaya marka saddex buu sheegay mid ugu dambeysay anaga in maanta ina khuseysay nabigu uu inoo damaanad qaaday waxay tahay بيتا قري أو في أعلى الجنة يعني جنة قوة وسرية يعني لمن حسن خلقه أو كما قال عليه الصلاة والسلام قفك أخلاق ذي سؤال وناك سناته أيها النبي عليه الصلاة والسلام وحنوق بلن قال يا بيري جنة قري وسرية محايل آخرنا سادوكتين ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا بإلهي آخره أيضا وحيري يعني في الدرجات أدونك والله كلا سرية ودوكتين ضد ما أنت بليونس هيستا oo muxuu ahaay darajo sare haysta dadna waa masaakiin oo waxay ku nool yihiin dad buushash bay ku nool yihiin waa iska dad masaakiin oo milaamile marka aakhira markii la tago tan hadda adduunyo isku wax baa la cunaa isku wax baa la xirtaa laakiin aakhiradu markii la tago mar haduu ilaahay yiri wal aakhiratu akbaru darajaatin wa akbaru tafdiilan oo nabiguna kaleey salaatu wasalaam uu ku yiri guri jannada ka ugu sareeya ana ballan qaadaya liman qofkii akhlaaqdiisu ay wanaagsanaato
marka aad iyo aad baynu ugu baahannahay marka akhlaaqdeena inaynu wanaajino marka sidaasaan marka aan jannadiina ugu helaynaa sidoo kaleeta waxaad ogtihiin adduunyadana waxyaabaha qofku maaragtay uu ugu baahi badan yahay waxaa ka mid a in ilaahay subxaanahu watacaala maaragtay uu barakeeyo oo cimrigiisa iyo noloshiisa uu u barakeeyo marka sidaa darteed baa marka waxaad ogtihiin ziyaadat alacmaar waxay badisaa qofka akhlaaqda wanaagsan cumrigiisa ayay zaa'idisaa cumrigu ma zaa'idaa ها عمرك وازايد علماء dhexda khilaaf baa ka jiro awtan qaarkood waxay leeyihiin toos baa qofka loogu zaa'idino waxa jira acmaar kala gedisan haduu qofku waxaan sameeyo cimrigiisa inta loogu dara ayaa jirta haduusan waxa sameeynin cimrigiisa meesha lagu ekeeyo hadaba sidaasi jirto macnaha waa lagu zaa'idinaya ama meeha cimrigaagu haduu goonaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala baraka ku gelinaya oo nabiga kaleey salaatu wa salaam wuxuu yiri husnul khuluq wa husnul jiwar yaani macnaha akhlaaqda wanaagsan iyo husnul jiwar kaba maxay sameynayaan yucamiraan diyaar feeri guryaha camiraan baa leeyahay guryaha camiraan oo maxay ku camirayaan de gurigaas wuxuu noqonayaa guri baraka badan oo maal iyo ciyaal iyo khayr iyo cilmi iyo wixii marka bini aadamku uu jecel yahay ayaa ilaahay oo tacmiir ah tacmiirku ma aha gurigu inuu maaragtay guri dhisan inuu yahay amba meeh niyad wanaag iyo degani iyo xasilooni waxaas oo dhan tacmiir bay noqonayaan marka nabiga kaleey salaatu wa salaam wuxuu yiri qofkii la yimaado xusnul khuluq iyo muxuu ahay xusnul jiwar waxa way diyaartay u camirayaan way ziidani al umra cimrigan way ku kordhinayaan feerada cimriga baa lagu kordhinaya marka wax maxaa uga baahi badan tahay maanta in ilaahay subxaanahu wa ta'aala cimrigaaga uu daarto uu ku barakeeyo oo cimrigaagana uu ku zaa'idiyo marka taasina waxa lagu helaa akhlaaqda wanaagsan baa lagu helaa sidoo kale waxaad ogtihiin iimaanku horta feeri akhlaaq waxyaabaha ugu muhiimsan iimaanku waa meeshii bayskii laga dhaqaaqay marka iimaankaagu inuu ku dhameystirmo oo ku zaa'ido waad rabtaa marka iimaanka waxyaabaha oo dhameystiraya waxa kamid ah akhlaaqda wanaagsan nabigeena kaleey salaatu wa salaam wuxuu yiri akmalul mu'miniina mu'miniinta waxa ugu kaamil badan iimaanan xagga iimaanka waxa ugu kaamil badan ahsanuhum khuluqan akhlaaq ahaan kuwa ugu wanaagsan ayaa ugu iimaan dhameystiran marka sidaa darteed baa marka waxa weeye waxaad garanaysaan marka in akhlaaqda wanaagsan marka ay tahay shay iimaanka ba kamid ah oo muxuu ahaay qofka muxuu ahaay uu ku helayo baraka badan oo uu ku helayo waxaan shaki ku jirin akhlaaqda wanaagsan markii laga hadlayo waxyaabaha aad iyo aad ka maartay oo ugu barakada badan ee laga helayo inay kamid tahay kasbul qulub yaani dadka qalbigooda inaad kasbanayso oo qofka akhlaaqda wanaagsani waxa weeye mar walba wuxuu noqonayaa محبوب ونقنايا نين لجعله ونقنايا أو مركب سو محبوب ونقنايا محبوب ونقنايا إله سبحانه وتعالى في رقفك جعل هذا وذكرنا حديثك وأكيد قفك جبريل أو النبي عليه الصلاة والسلام وكورنا لها هدي معركة إلهي وقف جعل هذا جبريل بالون هذين يا ولها يا مركب له هي وان جعل هذا أظن جعله مركب كبعد دتك أهل الأرض أيا يوضع له القبول مركز قفك أقبلات بالوس ودجينا يا والله جعلنا يا marka feeri mar haduu ilaahay subxaanahu wa ta'aala marka uu ku jeclaado waxa weeye dadkiina way ku jeclaanayaan malaa'igihii baa ku jeclaanaya marka waxa weeye akhlaaqda wanaagsan marka waxay keentaa marka inay dadku ku jeclaadaan maxaa yeelay dadka bini aadamka qulubtiisu qofka akhlaaqda wanaagsan aad iyo aad bay u soo jiidanaysaa way jeclaysanaysaa marka waxaan dhihi karaa waxyaabaha ugu muhiimsan ee marka akhlaaqda wanaagsan ay ku wareegayso waxay noqonaysaa inuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ku jeclaado inuu rasuulkiisu ku jeclaado in dadka bini aadamka oo ahlu khayrka ay ku jeclaadaan ee dadka wanaagsan ay ku jeclaadaan inaad markaas jannadii aad ku hesho in maaragtay miisaanka ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu miisaankaaga maaragtay maalinta qiyaamo uu ku culaysiyo maxaa yeelay waxyaabaha maalinta qiyaamaha miisaanka ugu culays badan sidoo nabiga kaleey salaatu wa salaam wuxuu sheegay inuu yahay husnul khuluq inuu yahay marka sidaa darteed baa marka waxaan u baahannahay inaynu ku dadaalno akhlaaqda aad iyo aad maaragtay inaynu dadaal badan ku bixino sidii aynu u kasban lahayn akhlaaq wanaagsan oo bini aadankana aan maaragtay akhlaaq wanaagsan aan ugu la dhaqmi lahayn waa mahadsantihiin mar kale waa idinku mahad celinayaa halkaan aan idinka mahad celinayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh